الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد walaalayaal waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhammaantiinba. waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayaa inuu hadalkeenna iyo camalkeennaba ka dhigo mid ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa iyo sunnada nebigiisa caleyh isalaatu wassalaam waafaqsan. qeybtan waa qeybtii 13 ee barnaamijyadii noo socdayn kaga hadlaynay qoyska muslimka ah, gaar ahaan qurbaha ku nool iyo gaar ahaan qoyska soomaaliyeed, dhibaatooyinka dhaca iyo waxyaalaha mashaakilka ah iyo sida lagu xalin karo. intaa ka horna waxaan kasoo hadalnay waxyaalaha tiirka u ah oo loo baahan yahay ragga iyo dumarkuba inay fahmaan, oo qoysku meesha uu ka joogo islaamka inay aad iyo aad arin muhiima u tahay, guurku meesha uu ka joogo islaamka inuu arin aad iyo aad culus yahay. waxaan kale oo tilmaanay in alla subxaanahu watacaala arinkan oo aad kitaabkiisa kariimka ah ee qur-aanka ah iyo sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaamba aad iyo aad ay u bayaaniyeen arinta ku saabsan qoyska muslimka ah. laakiin dhibaatadu ay ka dhacayso imaa dadku inayan garanayn oo ay jahli ka qabaan rag iyo dumar, oo ninkuna aanu garanayn waxa qoyska kaga laasimay ama isaga iyo xaaskiisa waxa u dhexeeya oo sharcigu waxa uu ka yiri, kitaabka ilaahay subxana watacaala waxa uu ka yiri, ama gabadhu ayan garanayn waxa ninkeeda ka saaran xaggiisa xuquuq iyo waajibaad ay ku leedahay. dhinaca way ka timaada iyo in la og yahay laakiin aan loo aabi yeelino alle subxaana watacaala aan laga biqin oo midkood uu ku xadgudbo ama ku takrifalo waxyaalihii ilaahay subxaanahu watacaala u waajibiyey. arrimahaas aad baan uga soo hadalnay. waxaan insha allahu tacaala qeybtan isku dayeynaa inaan ka hadalno khilaafaadka haddayba dhacaan labadii qof guurkii oo diin ku salaysan sida aynu marar badan soo sheegnay, oo ay tahay in diin lagu saleeyo iyadoo kalgacal iyo naxariis siduu ilaahay subxaanahu watacaala u yiri wajacala baynakum mawadatan waraxma ina fi dalika laaayatin liqowmin yatafakaruun. iyadoo ay ku salaysan tahay ragguna inay macruuf dumarkuma dhaqmaan, dumarkuna raggooda inay adeecaan siduu ilaahay subxaanahu watacaala u yiri wacaashiruuhuna bimacruufin. ragga weeye arinkaas alle subxana wataala u faraya faimsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan. dumarkana inay adeecaan raggooda. faالصaalixaatu qaanitaatun xaafidaat lilgeybi bima xafid allah. alle subxana wataala fain aطacnakum falaa tabguu calayhina sabiila ina allaha kana caliya kabiira. iyadoo asaaska adag marka hore loo dhigay, haddana bani aadan baa layahay oo khilaaf waa isdhici karaa. khilaafka horta waxaan niri intaan laga hadlin waa in la xusuusnaadaa aayaadka waxyaalaha ka sheekeeye. nebigu alay slat slam waxa uu ka sheekeeyey oo gundhig u ah khilaafka sida lagu xaliyo. maxaa gundhig u ah? ilahay cabsi, alla ka cabsiga, taqwa allahi tabaaraka watacaala. aayaadka wax badan ay kusoo noqnoqota wattaqu llaha, ilahay ka baqa, ilahay cabsada, ilahay ka cabsada, taqwada ilahay ilaaliya, rag iyo dumarba. waxaa kaleeto oo gundhig u ah in la ogaado alla subxaana watacaala inuu arrinkan daalacanayo, inuu ogyahay, in cilmi u leeyahy. waclamuu ana allaha bima tacmaluuna basiir. ilaahay subxana watacala waa ogyahay waxaad samaynaysaan, haddaad iskhiyaamaysaan, haddaad isasiraysaan, haddaad dhib isku samaynaysaan, haddii ninkuu doonayo gabadhan inuu dhibo niyadiisa ay tahay, ilahay waa ogyahay. ha dhibin, laa darar walaa diraar, dhib ha ku samaynin. laa tudara waalidatun biwaladiha walaa mawluudun lahu biwaladihi wacala lwaarithi mithlu dalik. yaan laysdhibin, yaan yani laysku xadgudbin. taasna inuu qofku xusuusnaado xuduudda ilahay in la ilaaliyo, aayaadka ilahay inaan lagu dheelin oo jees laga dhigan, in yani arinka aan meel fog lala tegin. maxaa yeele beri wax dhici doona ma taqaanid, laa tadri lacala allaha yuxdithu bacda dalika amran. fadliga iyo wanaagii soo dhex maray inaan la hilmaamay. haddii intaas aan kasoo gudubno, khilaaf baa dhacay. khilaaf hadduu dhaco horta waxaa loo baahan yahay raqam waaxid, marka koowaad in la xusuusnaado in nafta loo noqdo, oo adigu horta taqsiirkaaga ninka iyo gabadhuba mid walbaa naftiisa ku noqdo, oo inta aadan dhinaca kaleeto un yani xumaanta iyo dembiga iyo wuxuu dhan dhibta isaga u saarin, inaad naftaada xisaabiso, taqsiirkaaga adigu aad ogaato, gaabiskaaga aad ogaato, xaggee maaragtay ku gaabisa. arinka labaad waxa weeye inuu mid walba ogaado in dhibaato ayan iman ila bidhanbin, wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydikum wayacfu can kathiir. alle subxaanahu watacaala leeyahay yani
waxa idinku dhacaya ama musiiba hadday dhacdo dembi un bay ku timi. alimaam maxamed ibnu siriin ayaa wuxuu taabici buu ahaaye waxaa laga wariyey wuxuu yidhi haddii aan dembi sameeyo waxaan ka gartaa buu yidhi caasinimada ay caasaha ay dabeecadda igula dhaqmaan xaaskayga iyo gaadiidkayga iyo dhibaatada meeshaasaan ka gartaaba musiibada iga qabsanaysa. arrinka saddexaad waxaa weeye khilaafka inaan la ballaarin oo la weyneyn oo dadka khuseeya ninka iyo xaaskiisa hadday tahay masalan inaanu ka bixin in laysku dayo inta la celin karo la koobi karo in la koobo khilaafka oo aanu xadka ka bixin oo aanu inaga gudbin oo meelo badan aanu aadin ayaa loo baahan yahay. waxaa kale oo loo baahan yahay in yacni dadka mararka qaarkood soo dhexgelintooda oo maaragtay dad badan oo qaraabada xataa ah lasoo dhexgeliyo waxay keentaa in dhibaato weyni ay kusii kordhiyaan ee wax badan aanay xalin ayay marar badan keentaa. waxaa kaleeto oo iyaduna muhiim ah qodob saddexaad in la xadido waxa laysku khilaafsay. waxbaa laysku qabtay, ma nafaqada, ma ilmaha, ma gogosha, maxay tahay shayga ilaa wax badan baa ka dhexeeya labadaas qaba. maxuu yahay waxa laysku khilaafsan yahay, shayga laysku qabtay maxay tahay, qodobkaas baa marka lagu soo urursanaya isaga in la xaliyo. ila waxyaalihii kale dhib kama jiro, marka inaan waxyaalihii kale sheegno oo ceebihii kale o dhan soo tirino arrinkaasu arrin saxa maaha. khilaafkin buu sii fogeynay. waxaa laga yaabaa kii meeshii laysku hayeyba in laga baxo oo meelo kale oo aan loo joogin la tafo. marka waa in la xadidaa war qodobkaas weye qodobkaan isku haynaa, waxa kaloo dhan waxa weeye dhibaato kama jirto waynu ka heshiisnahay. qodobka afraad waxaa weeye marka la hadlayo oo mid walba doodiisa uu soo cadaynayo, qofka dooda qaba oo mushkilada sheeganaya hadduu ninka yahay iyo hadday gabadha tahay inuu ka hadlo sida uu arko dhibaatadan. leanna waxaa dhici karta xataa qalad inuu fahamsan yahay, kan kale inuu qalad ka fahamsan yahay baa dhici karta. marka waa inaanu ballaarin hawsha u baahin, waa inuu sida uu arko mushkiladaas iyo sida ay u dhibayso isaga waxa dhibaya uu ka hadlaa, ra'yigiisana muujiya, aanuna ka dhigin ra'yigiisa inuu yahay kitaab soo degay oo kaleeto. kitaab soo degay oo kale waa inu ra'yigiisa ka dhigin arrin la niqaashi karo, uu ku saxsanaan karo, mararka qaarkood uu ku qaldanaan karo inay noqoto marka la fiiriyo. arrinkan kale waxa weeye haddii ay mushkilooyinka sheegayaan oo laysqabtayba waa in marka hore bal horta lagu horumaraa waxyaalaha wanaaga. gabadha waxaa arkaysaa iyadoo ninka kaga cabanaysa waxyaala mucayana oo ah masalan caruurtii lama daryeelo, ama markay xanuunsan tahay ma fiiriyo si fiican uma daryeelo, ama ihtimaam badan ma siiyo, ama waqti ma siiyo. isagu waxaa laga yaabaa inuu kaga cabanayo masalan ama carabka ama maaragtay waxyaalo gaabis oo xagga caruurta ama waxyaalo kaleeto oo reerkeeda iyo gurigii inay ka baxdo ama waxyaalo mucayana inay kaga tagto. waa in horta mar walba marka aad ku horumarto waxyaalaha wanaaga ah qofkan uu leeyahay, gabadhu inay ku horumarto martan ninkeeda waxyaalaha wanaagsan uu leeyahay, xusidaas waxay keentaa khilaafku inuu xoogaa qofku aanu ku talax tegin. qofka markaad wanaagiisana sheegto waxa aad ku dhaliilaysana markaas aad tilmaanto si hufan waa ka aqbali kara. isagana waxaa la rabaa saasoo kaleeto waxyaala ay ku wanaagsan tahay, wallahi xaaskaygu waxaas iyo waxaas waa ku wanaagsan tahay, waxaas waa ku fiican tahay, fadligeeda dhinacaas ma ilaawi karo, wanaageeda dhinacaas ma inaawi karo, waxyaalo badan oo maaragtay oo wanaag ahay samayso arrinkaas waa u qirsanahay. arrinkaas wuxuu keenaya marka horeba inuu horta dejiyo qofka temperaturekiisii u dego oo wax laysu ogolaado, laysu tanaasuli karo. wallahi waa run, isaguna sida uu sheegayo aniguba waxay jawaabtu noqonaysa aniguba dee wanaaggaasaan ku aqaan. hal jazaau lixsaan ila lixsaan. hadday tiraahdo ninkan wanaaggaasaan ku ogahay, waxaasuu ku fiican yahay, arrinkaasna wuu ku fiican yahay, arrinkaasna wuu ku fiican yahay, fadliga dhexdaya ma hilmaami karo, wanaagiisii ma ilaawi karo, waxyaalahaas waa isku waafaqsannahay. waxay keenaysaa taas inuu soo qaboobo, soo dego, isaguna uu yirahdo wallahi anu xaaskaygii weye, gabadhaan saas iyo saas, waxyaalahaas way ku fiican tahay, arrinkaa hebel way ku fiican tahay. maaragtay kaas waa qodob muhiim ah oo arrinka khilaafka marka la rabo in la xaliyo
وهرت إن تكهر مرتو وحو ناكسن أو لسكوا وافقسنيه. ثانيا إذا قف كان وناجيس هذا إنكرين أو قف والبا ولي حمان إيه صمان بولي قف والبا صفوين في عني صفوين حم بولي قبل إيه ننكب مد والبا هذا مركز كلا وينانو إنكرين كيس كلا وحكلته يدنا مهمة إن حقوق هذا أذن هذه جروينين أو يلا كلية أذن كهل وين أذن واجبات كاجينا لكن أذن وجين يو أديك واحد واجبات كاجي كتكت سيدا حقوق أذ حاس كاج أقول هذا هاي واجبات بدن بأديك أنا قصار وننكا قبلنا سيدا حقوق ننكا أقول هذا وأدو قربت النحاريست يو هاي طبيعة وناكسن يو دقنك وناكسن يو إنه ماركتي كدر يالو إنه وحيالا بدن كوسما يو إحسان فلو كوجا جبنادو قبل هاي وحيالا سدد كوجا عشا أقو أديك حقوق كلو وين إليكو صارنتا ما في رسي حقوق دا أديكو صارن إنه قابس كجلو oo halkaas uu ka gadoodsan yahay laakiin aan sheegay ama niyo adigu gabadha inay halka ka gadoodsan tahay waajibaadkii lagu lahaa inaan ka soo bixino halka gadoodku ka jiro waa in qofku marka dadku bani aadamku wax iska war xaqiisa inuu sheegto isagu tiisa waa ka hadlay yaqaana waxaas xaq ugu leedahay waxaas xaq ugu leedahay waxaas xaq ugu leedahay buu soo arkaa laakiin ma fiirinayo isaga waxyaalihii waajibka loogu lahaa oo badanaaba kama hadlayo midda kale oo muhiimka ah hadii la rabo khilaaf in la xaliyo waxa weeye أو ريرك خلاف سوكر نحقله الاعتراف بالخطأ الاعتراف بالخطأ يعني إنه قفكو غلط كيس قرته أرنكاسو نعس نما ما فلين نما ما دول نما معها وجيس نمو يعني جيس نمو وانا تقوى إيو دينوي إنه قفكو غلط كيس قرته إلى واحد سوانكو غلطان هاي waxay kala tilmaamaysaa kalsooni qofku naftiisa ku qabo waa qof kalsooni naftiisa ku qabo qofka raay waxaas ku qaldan laakiin qofka yaani isagoo u jeeda qaladkii ku siitiin banaya oo aan qaranayn marnaba aan i'tiraafin oo aan aqoonsanayn wax qalad inuu leeyahay arrinkaas ma aha arrin sax waxyaalaha dadku ku bixiya qaarkood inaanu qaladka sheegin qaladkiisa sheegan waxa kamida inuu siiraado meeshaas lagu qabsanayaa يعني هدي قلت كاجل أوجاده وحالا قدرنا يا نقطة أما يعني بوينت لو وقف صلاة أو ما ركتي أتكدب عسنتها هيو لو وقت كيوميشة قفك حرام يسال لقبتها ينكون نقونيسا لكن أرن صح معها الرجوع إلى الحق فضيلة يعني حق الله نقضه وفضيله وأرن ونكسن وأرن جني سينما إلهنا سبحانه وتعالى الضوء ما سدتك وجه عليها وحكم ذلك التوابين توابين تواب كوا محي وقف نقاشة بدن ألا نقاشة بدن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نبي الله إبراهيم وقلت الإمام على سنة إن إبراهيم لأواه حليم إلهي سبحانه وتعالى ساسو قلت الإمام وحكلته مهمة وحيالة طبيعية باجرة أو قارة ومثلا يعني إلهي سبحانه وتعالى كو أبوري دمرك مثلا غيرتها وكلاته أما هنا عصاها وحقيقة إلهي كو أبوري صبر بوباند مركا لبضا إسقبا وحيالها مهم كوي حصوصا يعني وحكم بذا خلاف بحدو يمادو صبر باللبه صبر إلهي سبحانه وتعالى وحبضا بو آيات القرآن كانوا أمر واستعينوا بالصبر والصلاة الصبر كأي صلاة دكا على ما يستقبل إلهي وحلو وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة هذا اعتماد لبها دو يماد نقفكو إنا لله وإنا إليه راجعون صبركو waxaad ku gaaraysaa jannaad ku gaaraysaa waxaad kale ku gaaraysaa wax kasto aad jeceshahay oo doonayso Allah subhanahu wa ta'ala xulay inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab was-sabirina ala ma asabahum wal muqim as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun marka sabr illa isu sabro ayaa loo baahan waxa kale oo qodob in la xusuusto muhiim waxa weey in يعني قفكو رالي كو نقدو وحي إلهي وقيبشي كبدا هذا نينكيدا wax qusuura ama gaabisa ama meelay ka gaabin isku aragto inay ku raali noqoto Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u qaybshay warda bima qasama Allah laka takun aghna an-nas wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku siiyay ku raali
alla subxaanahu watacaala ugu raali noqo, qanaaco qab. adiguna saas oo kale xaaskaaga haddii waxyaalo maaragtay adduunka o dhan baa kula qabaa, ma aha keliga. hadday xaaskaaga aad u qurux badnayn, dad badan baan aad u qurux badnayn xaasaskooda, ka imisaa jira, waa badan yihiin. marka adigu ninkaagu hadda saas ahayn, waxyaalahaas aan ku jeclay, dad badan baa kula qaba, maaha mushkilada keliga, maaha adduunyadana wax walba oo maaragtay laleeyahay in la helayo laysa bidaruura, arrin daruura maaha. marka waa inay maaragtay xusuustaan oo wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku qoray aad ku raali noqoto. sidoo kale waxyaalaha muhiimka ah oo loo baahan yahay oo aadaabta ka mid a khilaafka inaynu yani xusuusaano inaan carada lagu degdegin, oo ninku marka caroodo oo yidhaahdo furiin baa kasoo horeeya, ama gabadhu marka ay iyaduna carooto waxaa kasoo horeeya cay iyo hadal xun ama af xun. qofku markuu caroodo waa inuu qabobaa, waa inuu aamusaa, waa inuu sidii nebigu alayh salatu salam ina faray, hadduu taagan yahay fariistaa, hadduu fadhiyo istaagaa, hadduu fadhiyo jiifsadaa, weysaystaa, ka kacaa weysaystaa. yani waxyaala badan ayaa loo baahan yahay ilaa naftu degto, caradu degto, qabowdo, acsaabta iyo maaragtay nervos uu dego. waxaa loo baahan yahay caradu inaan inaga tanbadin, maxaa caradu waa cadow, shaydaankaana yani ka faa'iideysanay. nin baa ku imanaya wuxuu ku leeyahy xaaskaygii baan furay, dee aad baan u caraysnaa, arrinkaas ma laga soo qaadaya, oo maadoo faraxsan baad furi lahayd. marka caro waa jirtaa mar walba, adoo caraysan baad furaysaa, laakin waxaa loo baahanya carada inaadan kaa tanbadin, inaadan isu dhiibin ayaa loo baahanya, carada inaadan isu dhiibin. waxaa kaleeto oo muhiima, oo qodob muhiima ah, inuu qofku diyaar u noqdo haddii la rabo khilaaf in la xaliyo, wax idinka dhexdhaceen adiga ninkaagi ama niyo adiga iyo xaaskaagi, waxaa loo baahan yahay tanaasul. tanaasul waa daruuri, inuu qof walba wax ka tanaasulo waa arin khasaba oo khilaafka lagu xalin karo, si aan guurkaas u burburin, si aan gurigaas u burburin, si gurigaas u badbaado, ayaa loo baahan yahay in wax laga tanaasulo. in wax laga tanaasulo oo xuquuqday aad lahayd qaarkeed aad ka tanaasushaa, waxay ka fiican tahay in gurigii o dhan u burburo oo waxba xuquuqa aadan meesha ka helin marka ay baaba'do. marka taasna aayaadkeeda waan cadayn doonaa, waan ugu imaanaynaa. sideedaba waxay ku imaanaysaa sulx iyo wax lagu heshiiyey, xuquuqdii waxbaa ka tanaasuleysaa. marka uu ilaahay subxana watacala y wain imra'atun khaafat min bacliha nushuuzan aw icraadan falaa junaha calayhima an yuslixa baynahumaa sulxan wa sulxu khayr. dee gabadhi ka daranto ninkeedii inuu madax taagayo oo ka jeensanayo oo aanu usoo jeedin, iyana waxay oranaysa ord irida ka bax maca salaama iskaga dhaaf may. yani haddii ay doonto inay islaax samayso, xuquuqdeedii qaar ka tanaasusho way heli kartaa, ama meerka qaar kaa dhiman, lacagtaasaan kaaga tanaasul, intaa qaado, laakiin aan wada joogno. masalan dadka qaarkiis waxay arkaan inay arrin dhibah tahay, maya, dhibku waxa weeye in meeshii u burburto lagu kala tago, soo kama darna. ama inaad xuquuqdaadi qayb hesho, inaadan waxba helin, soo kama darna. nacam. marka yani waa waxyaala banaan, inoo banaan in sulxi la samayn karo. ilahina subxana watacala wuxuu leey wa sulxu khayr, yani islaaxa iyo heshiiska ayaa wanaagsan, wax ku heshiisaan oo wax isku timaadaan. marka in xuquuqdii qofku yani uu qeyb ka tanaasulo, arrin aad u fiican oo markaa sulxi keeni kara waayo. qodobka ugu dhameeya oo masalan muhiimka ah waxa waaye, haddiiba khilaaf jiro adaabtiisa kamida, waxa weye duruufo kala duwan baa la imanaya. markii dalkaagii aad joogtay, qaraabadii ku dhex joogtay, gurigaagii aad joogtay, beledkaagii aad joogtay, waa ka duwan tahay markaad qurba joogto oo beled ajnabiya joogto, meel gaalo ah joogto, meel dhibaato ah joogto, way ka daran tahay. waxaa loo baahan yahay duruufahaas in lala falgalo, oo ninka iyo gabadha labaduba ay la falgalaan arrimahan oo ay ogaadaan, oo duruufaha say ula tacaamuli lahaayeen, ula falgeli lahaayeen arrintan cusub, ay maaragtay aad iyo aad ugu xisiisnaadaan. duruuftu waa kala duwan tahay, jawigu waa kala duwan yahay, xagga waa qabow, xagga waa kulayl, xagga waa maaragtay waa islaam, xaggan waa gaalo, xaggan waa qurbo, xaggan waa wadan, yani waa kala duwan tahay duruufuhu. marka ninki waxaa laga yaabaa hawle cusub in looga baahan yahay iyo mas-uuliyaad cusub aan looga baahnayn wadankii markii la joogay. gabadha waxaa laga yaabaa mas-uuliyaad cusub in looga baahan yahay oo markii la joogay dhulkii muslimka aan looga baahnayn in looga baahdo. marka qof walba waa inuu ogaado duruufaha iyo arrimaha
ku xeeran. arrinka kaleeto oo muhiimka ah oo aan jeclay inaan kusoo khatimo maanta waxa weeye maalka ama xoolaha inaanay wax walba ahayn oo lagu kasban karo sacaadada ama wanaag ama nolosha wanaagsan inaanay ahayn xoolo kaliya. marka inaanu xooluhu ay noqon khilaafka ugu weyn oo dadka ku kala tagaan. marar badan khilaafaadka ugu weyn markaanu sii raacno waxaan arkaynaa oo qurbaha qoyska Soomaalida burburiyay dhaqaale waay 40 geniya halka laga helaya 50 geniya meeshaas laga helaa bil walba waa lagu kala tagay ana qaadanay iyo ana qaadanay sana loo maamulo iyo sana loo maamulo hooyada loo diraa iyo hooyada loo diraa aabaha loo diraa iyo aabaha loo diraa in lagu diriro dhibaatooyin ay qoyskii ku soo gaarto caruurtii ku kala tagto reerkii ku burburo arrimaha dhaqaaluhu marka si kastaba ha noqdaan ma aha yani waxa lagu helo nolosha wanaagsan waa iimaanka nolosha wanaagsan waa cibaadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala nolosha wanaagsan waa sabirka iyo cafwiga liscafiyo laabta wanaagsan taasu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku siiya nolosha wanaagsan waa dhikriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay ala bi dhikri Allahi tatma'innu alqulub qalbigu wuxuu la degaa oo ku nasta oo ku xasila Allah subhanahu wa ta'ala xuskiisa intaas oo aan uga dhigaynay gol xaar khilaafka talaabooyinka inuu ku xalinayno iyo aadaabta la ilaalinayo ayaan ku soo gabagabeynayaa maanta kulankayga inta dambe oo aan dib uga kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.